booliiska waddanka Jarmalka ayaa sheegay inay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan haweeney iyo nin 45 jir ah oo asal ahaan ka soo jeeda waddanka Turkiga loogana shakisan yahay tuunkiisuna yahay inuu ka dambeeyay fal dambiyeed dil ah oo lagu toogtay ilaa iyo 6 qofood tiro intaa ka badanna lagu dhaawacay oo ka dhacay mid ka mid ah magaalooyinka waddanka Jarmalka. Dilkan ayaa ka dhacay magaalada Stade ee waddankaasi Jarmalka waxayna booliisku sheegeen in 45 jirkan asal ahaan ka soo jeeda waddanka Turkiga ay u soo qabteen oo ay ku tuhmayaan inuu dilkan ka dambeeyo. Booliiska ayaa sheegay in arrintan ninkan iyo dilka iyo sidoo kale dhibaatada uu geystay ay ku lug lahayd xanaanad carruurta lagu daryeelo. Waxa ayna booliisku intaa ku dareen in dhibanayaasha la dilay 4 ka mid ah ay yihiin dumar halka labada soo haray ay ahaayeen rag kuwaasoo ka shaqaynayay xarun lagu daryeelo carruurta, hooyooyinka iyo sidoo kale dadka caawinaada u baahan. Booliiska ayaa sheegay in ay ku daba jiraan 2 qofood kuwa oo ay uga shakisanaayeen inay dilkan iyo arrintan dhibaatada ah ka dambeeyeen. Dad goobjoogayaal ah ayaa warbaahinta u sheegay inay arkayeen haweeney iyo nin ku baxsanayo gaari kuwa oo ay sheegeen inay u malaynayaan inay yihiin 2 qofood ee geystay dhibaatadan. Marka laga soo tago 6 qofood ee goobta lagu dilay waxa iyana jira dhowr qofood oo dhaawacyo kala duwan loogu geystay goobta. Ninkan ayaa lagu soo waramayaa in kiiskiisa ay qusaysay carruur loo malaynayo in laga soo qaatay oo ay xaaskiisu la socotay goobtana ay ku sugnayd. Yeeshee warbixinada qaar ayaa sheegaya in haweeneyda ninkan uu qabay iyo gabadha yar ay iska dhaleen oo goobtan ku sugnaa laguna daryeelayay maadaama loo malaynayo in lagala soo cararay ninkan odayga ah ay labaduba waxdiba soo gaarin dadka dhaawacmay iyo kuwa dhintana aysan ku jirin. Yeeshee waxay booliisku baaritaan xoogan ka wadaan goobta iyadoo ninkan iyo sidoo kale haweeneyda la sheegay in ay ku kaalmeynaysa falkan dilka ah iyo dhibaatayntan uu ka geystay xarunta lagu daryeelo carruurta, haweenka, hooyooyinka iyo dadka dhibanayaasha ah laga weydiinayo wixii ku kalifay iyo sababtii keentay. Magaalada Stade ayaa waxaa ku nool ilaa iyo 50,000 oo qofood waxa ayna qiyaastii 35 kiiloomitir galbeedka ka xigtaa magaalada weyn ee waddankaasi Jarmalka ee Hamburg. Halka warkiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.